السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenan cusub. barnaamijka kan oo ah mid ku saabsan sooyaalka Soomaaliyeed iyo danaha iyo waaqaca Soomaaliyeed oo la mid ah qaar ka mid ah barnaamijyadii hore oo aan bogga kan isaga ee aroorka kasoo gudbinay, gaar ahaanna ku saabsan arrimaha siyaasadda. saynu uga wada hadalnay oo u falanqeynaynay barnaamijka kan maantada kii ka horreeyey oo ku saabsanaa heshiiska dhex maray dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaali diidka ah ee ku sugan magaalada Hargeysa ama xaruntiisu magaaladaas iyada tahay. ayuu barnaamijka kan maantana yahay mid tixraac u ah ama dhammaystir ah ama ku lug leh barnaamijkaas isaga ah ee xusan ee hore. run ahaantii haddaan toos wax uga taataabto dhacdada siyaasadeed ee ku habsatay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, aan ku ekeen Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waa mid taabanaysa, gelaysa, lug ku leh dhinacyo badan oo sooyaalka Soomaaliyeed ee cusub, laguna tilmaami karo inay arrintaasu tahay bog cusub oo maanta ku taal Soomaalida, muddo dheerna dadyo badan ay ka digayeen. waxaa lama huraan ah inaan saas awgeed hor istaagno ka falcelintii looga baahnaa Soomaalida, gaar ahaan hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliyeed. waxaa qabsoomay kalfadhigii labada gole, kan sare iyo kan shacabka, iyadoo ay intaas ku weheliyaan xukuumaddii iyo madaxtooyadii. balse marka loo fiirsado, run ahaantii hadalladii iyo weerihii goobtaas iyada ah ee lagu shiray ee Soomaali haldoorkoodii uu u dhammaa iyo wixii ay goobtaas iyada ah ka soo saareen, waxaan ku tilmaami karaa runtuna ay tahay inuu ahaa wax aan cuntami karin, oo micnihii muuqaalkii iyo baaxaddii iyo xawligii iyo qaabkii la filayay inaanu la saanqaadin, oo aada moodid in weli Etoobiyaankii iyo xabashidii iyo cadownimadoodii micnihii caddayd oo aan gabaadka lahayn weli laga warwareegayo taabashadeedii, iyadoo la isu ekeysiinayo in la isticmaalayo, la adeegsanayo oo lagu hadlayo luqad diblomaasiyadeed. maxaa la gudboon ama la gudboonaa haldoorkii Soomaaliyeed ee hoggaanka ahaa ee goobtaas iyada ee xusan isugu yimi? arrimo dhanka dibadda ah iyo arrimo gudaha oo inaga inoo gaaraaba halkaas waa mudneed in laga tilmaamo oo ay go-aan noqdaan. arrimaha gudaha haddaan wax ka soo qaado, waxaa loo baahnaa in loo fiirsado halka sartu ay ka quruntay daawade, oo ah dalkii Soomaaliya ama ciiddii Soomaaliya oo u qeybsantay wax lagu magacaabo maamul goboleedyo, balse run ahaantii gunaanadka ah seerooyin u gaara beelo Soomaaliyeed.
seerooyinkaas iyaga ana ay lid ku yihiin, aanna ay la saanqaadeen midnimadii iyo dhowristii jiritaanka ciidda iyo bulshada Soomaaliyeed. iyadoo hoggaan kasta oo seero gaara ootay uu xidhiidh dibadeed la yeelanayo dowlada shisheeye. arrinkaas isaga ah waxaa loo baahnaa in lasoo afjaro, weliba laga faa'iido dhacdada tan iyada ah ee maanta soo korodhay, oo halkaas iyada ah loo tafataxayto qaabkii sharci dejin loogu sameyn lahaa, dhanka dastuurkana laga eegi lahaa, in maamul goboleed wax lagu magacaabo aanu xidhiidh dibadeed la yeelan karin, ku noqdaba ha noqde dowlad ajnabiya. oo arrinka lagu soo afjaro oo uu caddaado si aan muran iyo caadcaad lahayn, in lagu soo koobo xidhiidhka dibadeed, in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda dhexe ay arrinkaas ama arrimahaas iyaga ah u qaabilsan tahay dalka, halkaasoo lagu soo afjari lahaa runtii arrinkaas isaga ah oo marar badan soo noqnoqday, keenayna isqabsi dhex mara maamul goboleedyadaas waxa lagu magacaabo iyo xukuumaddii dhexe ama dowladdii dhexe. sidoo kale in la mideeyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, iyadoo maanta aan la tilmaami karin ciidamo qalab sida oo Soomaaliyeed oo midaysan oo ka amar qaata dowladda dhexe, balse waxaa lagu magacaabo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ku sugan yihiin, leeyihiinna xambaarsan yihiin muuqaal maleeshiyaad oo ka soo jeeda beelo, oo ka soo jeeda maamullo qabaliya, balse la la'yahay ilaa maantada iyada ah ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka guud ahaan u dhaxeeya. arrinkaasuna waa isla ogsoonnahay inuu yahay arrin aan jirin, waa mid loo baahnaa in carabka lagu dhifto, loo howlgalo, lagagana hortegi lahaa damaaciga shisheeye ee bad iyo beri iyo cirba. dhanka dibadda waxaa lama huraan ahayd inay soo baxaan fariimo siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in xidhiidhka loogu jaro dowladda Etoobiya, ayna ugu wacan tahay inay duulaan xadgudub gardarro ah oo aan gabaad lahayn ku soo qaaday jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ama Soomaaliya. arrinkaasuna muuqaalkaas iyo qaabkaas isaga ee tilmaamo mudnaa, loona baahnayn warwareeg iyo wax lagu tilmaamo aragti diblomaasiyadeed. lama huraan buu ahaa arrinkaas isaga ah inuu dhaco. sidoo kale waxaa lama huraan ahayd in xukuumadda Soomaaliyeed gaadhsiiso dhammaan ururada caalamiga iyo goboleed ee dalku ka tirsan yahay, loona tilmaamo xadgudubkaas isaga ah ee ka soo jeeda dowladda Etoobiya, iyadoo lagu adkaystona in tallaabo sharciya
aan gabaad lahayn laga qaado. balse waxaa cad in xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya hoggaanka siyaasadeed guud ahaan ay muujinayaan weli inay rajo ka qabaan dowladda Itoobiya. sidoo kale waxaa loo baahnaa ciidamada shisheeye ee kasoo jeeda labada dal, gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya, si kama dambaysa in ay uga guuraan ciidda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. arrinkaasna la carbaabin lahaa siiba gaar ahaan ciidanka Itoobiya. dal aad is haysataan, ciiddaadii iyo dhulkaagii iyo baddaadii iyo dadkaagii kugu haysta, sidee u dhacdaa in ciidamadiisii kula joogaan oo dalkaaga joogaan? ma dhici karto. waxyaabo badan baa Soomaaliya iyo Itoobiya isku haystaan. dhammaan faragelintaas ee Soomaaliya shisheeye la degi la-dahay tan ugu badan waa mid kasoo jeeda dalka Itoobiya. Soomaaliya waxay u degi la-dahay qof walba waa garanaya. kooxaha intaa la hubeynayo iyo maamulada intaa la hubeynayo waxaa ka dambaysa waa Itoobiya. dalka ugu horeeya ee jebin jiray arrinka cunaqabataynta hubka ee saarneed dalka Soomaaliya, guud ahaan dalka jebin jiray min bilowgii ugu horeeyay oo arrinkaas isaga lagu dhawaaqo 1992 ilaa maantadaas iyada oo laga qaaday Soomaaliya oo official ah waa Itoobiya. saas awgeed lama horaan bay ahayd in la carbaabo in la iska saaro ciidamada Itoobiya. hadda wixii ka dambeeya in arrinkaas laga shaqeeyo. aanay joogi karin dalka ciidda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wax ciidan Itoobiyaan ah. arrinku kuma koobna badda keliya iyo in saldhigyo dalka laga siiyo, balse saldhigyadaa hore ee muuqaalo been ah iyo mala awaala lagu siiyey oo ciidda Soomaaliya gobollada dhexe iyo koonfureedba ay kaga sugan yihiin. arrinkaas isaga ah baaba laftiisu gardarra oo khalad ah. saas awgeed saan tilmaamay, guud ahaan falcelintaas ka soo baxday hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay qaab aada u hooseeya oo weli ka warwareegaya qaadashada xaaladda mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliyeed maanta saaran. saan garanayona ogsoonahay, hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliyeed waxba kama duwana hoggaanka siyaasadeed ee ka jira ee ku sugan magaalada Hargeysa. waxaa la isku haystaa waa arrinka saluuga ee ma aha nuxurka arrinku xambaarsan yahay. haddaan arrinkaas sii qeexo, wuxuu yahay xukuumadda Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho waxay saluugsan tahay in Itoobiya ay xidhiir toos ah la yeelato Hargeysa iyo maamulka Soomaali diidka ah, oo ay rabtaa in iyada oo ah matalaagii sharciga ee Soomaaliya in la soo maro, balse inay dhul bixiso, inay bad bixiso, arrinkaas isaga ah wax weyn uguma fadhiyo. balse arrinka la isku haystaa waa saluug. annagay ahayd inaadna soo martaan
xabashiyay addis ababa etoobiyay waan idiin saxiixino arrinkan isaga ah sidaan arrinkii kan ka horreeyeyba dekeda berbera lagu bixiyey imaaraadka la siiyey loo gacan geliyey iyo etoobiyaba macnihii muuqaalkaas isaga inuu raaco arrinka kan annaga hala noo soo maro ee toos arrinkaas ha kala xidhiidhinina maamulka hargeysa ku sugan dulucda warkoo dhani intaas ayuu isugu soo shubayaa waadna arki doontaan iyadoo arrinkaas isaga ah loo soo gudbiyo muqdisho oo muuqaalkoo dhan uu guud ahaan isbedelo sidoo kale haddii arrinkaas uu saas ku socdo waxaa meesha imanaysa iyaduna in maamul goboleedyo kale iyo beelo kale ee iyaguna xidhiidhkaas oo kale ah la yeeshaan dowladda etoobiya tusaale maamulka garowe oo kale inay u gacan haadiyaan etoobiya oo saldhigyo badeed iyo dhulba kee noqdaanba iyaguna siiyaan iyagoo halkaas ku marmarsoonaya arrinka iskaashiga iyo xidhiidhka iyo wada shaqeynta markaas maanta garoonku kubaddu waxay taallaa garoonka hoggaanka siyaasadeed ee soomaaliyeed iyo guud ahaan haldoorka soomaaliyeed haldoor markaan leeyahay hoggaan siyaasadeed kama hadlayo waa dhammaan haldoorka ka soo jeeda qaybaha bulshada ee soomaaliyeed oo ay ka saaran tahay mas-uuliyad taariikheed ee sooyaaleed ee ku aadan midnimada soomaaliyeed iyo xafdinta ciidda soomaaliyeed oo ah in arrinkaas isaga ah u dhaqaaqaan arrimaha noocaas oo kale iyo sidii bulshada soomaaliyeed ee ifka ku dhimatay loo nooleyn lahaa iyaguna ay qaybsanaanta siyaasadeed uga tallaabsan lahaayeen ay qayb ka mid yihiin haldoorku daawade waa anigoo ah khaalid xasan yuusuf ilaa intaan ku kulmi doono barnaamijka kan mid kaloo la mid ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu